kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal isku soo noqod wanaagsan meel kasta oo joogtaan iyo si walba oo aad inoola socotaan kusoo dhawaada wararkii alaaba aad kala socon jirteen ee shabakadan idiin soo gudbisa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale hadda kadib muuqaaladii iyo warbixinadii ee xasaasiga ahaa ee aan halkan idinkugu soo gudbin jirnay ayaan halkan kasii anbaqaadi doonaa inagoo idiin soo gudbin doonaa wararka Soomaaliya si gaar ah wararka kor u qaadaya dib u dhiska dalkeena qodobada aan idiin hayno xilligaana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo taageero culus ka helay ra'iisul wasaare Roble kadib heshiiskii dhex maray dhowaan iyada oo siyaasiyiin badan oo mucaarad ahna halkaasi ay ku lumeen ra'iisul wasaare Roble oo ballan qaaday in uu si toos u dhisi doono madaxweynaha dalka isla markaana mar kale uu ku celin doono talada Soomaaliya shacabka oo arrintaasi si weyn u soo dhaweeyay ayaan wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dowladda Turkiga oo ciidamo si gaar ah u tababaran u soo diraysa Soomaaliya kuwaasi oo ka qayb qaadan doona ilaalinta badda Soomaaliya kadib markii maalmo iyo toddobaadyo ka hor Soomaaliya loo xugmiyay kiiskii badda ay muranka gelisay Kenya arrintaasi ka naxday iyo Uhuru Kenyatta oo tallaabooyin kala qaadaya ayaan wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa midowga murashaxiinta waxaa ka dhex qarxay dagaalkii ugu cuslaa iyagoo u kala qaybsamay ilaa iyo 3 garab kuwaasi oo imika u muuqanayo kuwa sii kala haadaya amaba kala tegaya maxay ka naxeen miyay diidan yihiin guusha madaxweyne Farmaajo sidees isku qabteen maxaase ka jireen qaarkood ay taageerayaan madaxweynaha dalkaasi ay garab siyaasadeed uga helaan wararkaas iyo macluumaadyo kale oo la xiriira arrimaha siyaasadda iyo xaaladihii ugu dambeeyay wadaadka Sheekh Shaakir oo isagu ka cararay magaalada Gurceel isla markaana la sheegayo inay magangeliyo siyaasadeed siisay Puntland ayaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalkan iyo wararkeena sii faafiya oo saaxiibadiina kale la wadaaga sidoo kale like inoo saara muuqaalka qaybta hoosena aragtidiina saliimka ah oo alaaba aad ka soo dhiiban jirteen channelkan ayaad inoogu soo diri kartaan mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wararka waxay sheegayaan inuu taageero weyn ka helay ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble kadib heshiiskii dhowaan dhex maray isaga iyo ra'iisul wasaaraha madaxweyne Farmaajo oo markii hore ay isqabteen ra'iisul wasaaraha ayaa iminka waxa ay noqdeen kuwo si aad isugu dhow isla markaana iskala shaqeynaya horumarka iyo tayeynta guud ahaan dowladnimada ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble waxa uu si cad u sheegay in uu si aan hagar lahayn u taageeri doono madaxweynaha dalka isla markaana uu ka qayb qaadan doono sidii mar kale uu ku guuleysan lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu mar kale talada dalka ugu soo laaban lahaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha oo ay ka soo xigteen saraakiil ku dhow xafiiskiisa in ay tahay xilligan in mar kale talada dalka lagu celiyo madaxweyne Farmaajo maadaama wax badan oo muuqda uu dalka markaasi gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo ayuu sheegay inuu ku guuleystay in uu markaasi soo celiyo nidaamkii iyo kala dambeyntii ay lahayd dowladda Soomaaliya sidoo kale maamul goboleedyada xasilooni laga abuuray maadaama dowladihii ka horeeyay madaxweynaha dalka ay iyagu isqaban jireen dowlad goboleedyada balse iminka labada dowlad goboleed ee fariinka ka ah dowladda federaalka yihiin Puntland iyo Jubbaland oo iyaguna la qorsheynayo in haddii uu soo laabto madaxweyne Farmaajo iyaguna tallaabo cad laga qaadi doono ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay isla markaana uu ku dhaartay in sida ugu dhaqsiyaha badan doorashooyinka golaha shacabka loo dadajin doono maadaama la soo gabagabeeyay doorashadii aqalka sare marka laga reebo 2 kursi oo ku dhiman maamulka uu hogaamiyay madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor waxa ra'iisul wasaaraha sidoo kale laga soo xigtay in uu shaaca ka qaaday in uu mar kale kursiga talada ugu sareeya Soomaaliya laga hago ee filla Soomaaliya uu ku soo fariisin doono ama uu ku celin doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ayaa isaguna dhankiisa ka mahad celiyay tallaabadan ee bogaadinta leh waxaana uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu yahay shakhsi aad u wanaagsan isla markaana qalbi wanaagsan balse ay jiraan siyaasiyiin markaa qaswadayaal ah kuwaas oo gadaal ka riixayay khilaafkii madaxda ugu sareysa dalka ka dhex jiray balse iminka waxa uu sheegay in arrintaasi ay noqotay mid la soo gabagabeeyay shacabka Soomaaliyeed ayaa iyaguna siyaabooyin kala duwan oo aad u sareeya u soo dhaweeyay waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay arkaan madaxdii dalka oo mar kale dib markaa gacmaha isku haysta isla markaana ka shaqeynaya horumarka iyo toosinta guud ahaan dalkeena waxay sheegeen inaysan weligood arkin marka laga soo tiriyo burburkii madaxweyne lamida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna sheegeen in ay tahay mar kale codka loogu shubo ama codka la siiyo madaxweynaha sidaasina uu mar kale dalka ku hogaamiyo waxay sheegayaan shacabku in ay tahayba
in haddii mar kale ama 4 sano ee kale ee soo socota madaxweyne farmaajo uu dalku hogaamiyo in Soomaaliya ay la tartamayso wadamada horumaray. dhinaca kale dowladda Turkiga ayaa ballan qaaday in ay Soomaaliya u soo dirayso ciidamo si casri ah u tababaran kuwaas oo iyagu ilaalin doono isla markaana qayb ka noqon doona ilaalinta biyaha Soomaaliya. dhawaan ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya loo xukmiyay kiiska badda ee muranka gelisay dowladda Kenya, waxaana Turkiga oo ka mid ah dowladaha sida dhow saaxiibka u ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu shaaca ka qaaday in uu markaa taageeri doono dowladnimada Soomaaliya, isaga oo shaaciyay in uu sidoo kale ka qayb qaadan doono in aan lagu xadgudbin taaka kasta oo ka mid ah Soomaaliya haddii ay noqon lahayd beri iyo bad intaba. Kenya ayaa arrintaasi u aragtaa dhabarjab culus maadaama Turkiga uu ka mid yahay wadamada ugu quwadda weyn ee caalamka, taageero aan hagar lahaynna uu siiyo Soomaaliya oo dhinac waliba leh haddii ahaan lahayd ciidanka, horumarka iyo sidoo kale u gargaaridda dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed. waxaa ciidamada la rajaynayaa in markaasi la soo fasaxo isla markaana ay soo gaaraan biyaha Soomaaliya. sidoo kalena inta Turkiga kuma keen doono waxa uu ka qayb qaadan doonaa in uu tababaro ciidamo iyaguna ka qayb qaata ilaalinta biyaha ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa jirta in dowladda Pakistan oo ka mid ah dowladaha iyaguna horumarsan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada badda iyo sirdoonka, iyaduna ay sheegtay in Soomaaliya ay ka taageeri doonto arrimahaas hortaminta u leh in laga qayb qaato in la xadeeyo biyaha Soomaaliya isla markaana mar dambe aysan dhicin in Kenya iyo dowlado la mid ah amaba shakhsiyaad ay iyagu xadgudub u geystaan biyaha Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayay arrintan guul weyn u tahay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay rajeynayaan inay arkaan dowladda Soomaaliya oo cagaheeda ku taagan isla markaana ka shaqeynaysa arrimo ay ka mid yihiin horumarka dalka iyo in hore loo socdo oo laga mid noqdo dowladaha caalamka ee horumaray, halkii Soomaaliya inteeda kale ay isku mashquuli lahayd. balse arrintaasi waxaa ka soo horjeeda siyaasiyiin dana gaara leh, kuwaasi oo iyagu marnaba aan doonaynin in Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo. qaybaha dambe ayaynu isla soo gaarnay. midowga murashaxiinta ayaa lasoo sheegayaa in khilaafkii ugu ba'naa dhexdooda uu ka taagan yahay iminka, oo qaarkood ay markaa ay doonayaan in ay kala firxadaan. warar hoose oo la helaya ayaa waxay sheegayaan in ay u kala qaybsamaan ilaa iyo 3 garab. waxaa kale hogaaminaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Xasan Cali Kheyr iyo weliba sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxaa la safan ninka la yiraahdo Daahir Maxamuud Geelle oo dalka wasiir ka soo noqday. sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa la safan ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, halka Kheyre iyo Shariifkana ay iyaguna isku mowqif yihiin. waxayse u muuqdaan kuwo sii kala fogaanaya marba marka ka dambeysa, iyaga oona rajadooda hadda ay tahay inay markaasi kala irdhoobaan maadaama ay ka xumaadeen, weliba si aadana ay uga naxeen heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxweynaha iyo weliba sidoo kale ra-iisul wasaaraha. mucaaradka ayaa isku kaashanayay sidii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay ku kala geyn lahaayeen, balse arrintaasi way fahmeen madaxda qaranka, waa ayna ka heshiiyeen, taasi oo keentay in iyagu hadda dhexdooda isqabtaan markii ra-iisul wasaaraha garabkooda uu ka baxay. ma jirto siyaasi mucaarad ah oo ka hadlay heshiiskii madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha, dhammaantoodna afka ayay qabsadeen oo waa ay iska aamuseen maadaama aysan jirin wax ay sheegaan. ra-iisul wasaarahana aysan arrintaasi ka filaynin oo ay islahaayeen waa uu idin garab istaagi doonaa doorashada. marka ay fiiriyaanna doorashadu waxa ay u arkaan in aysan guul ka keeni karin oo madaxweyne Farmaajo uu arrintaasi ku gacan sarreyn karo amaba doorashada uu isagu ku guuleysan karo. haddaba mucaaradka ayaa waxay u muuqdaan iminka kuwa aan wax raja ka lahayn arrimaha doorashooyinka, sidaasi oo taana waxa ay rajeynayaan inay markaasi isaga baxaan tartanka doorashada qaarkood maadaama aysan haysan dhaqaale iyo taageero kale oo codod ah. ugu dambeyntiina Sheekh Shaakir ayaa lasoo sheegaya inuu magangelyo siyaasadeed weydiistay Puntland ayaa lagu eedeynayay muddooyinkii dambe in ay taageerayso wadaadada Ahlusunna wal Jamaaca ee ka dagaalamaya degmada Guraceel. madaxweyne Qoorqoor ayaa arrintaasi si adag uga hadlay xalayto, waxa uuna sheegay in ay tahay arrintaasi wax aan la aqbali karin, isla markaana lala xisaabtami doono gacmaha shisheeye ee ku jira maamulka Galmudug, isla markaana diidan horumarka Galmudug. waxaa Sheekh Shaakir iminka uu doonayaa in uu wada hadal la furo hogaanka Galmudug, balse lama oga halka
ay ku dambeyn doonto sheekadaasi. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkeenii. intaan wararkan warar la mid ah dib ugu kulmi doono waxaynoo balana channelka oo aad subscribe saarataan, sidoo kalena aad la socotaan warbixinada iyo muuqaalada halkan aynu soo gelino. intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.